madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada tan Muqdisho ayaa nasiib darro ku tilmaamay dastuurkii maanta ee ansixiyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. runtii waa wax laga xumaado waxa maanta ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya ayuu yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya. xogaala utiin maanta waxa ka dhacay baarlamaanka oo runtii wax aad looga xishooda ah bil Ramadaan oo barakeysan dastuur ku heshiisay oo muddo la soo waday oo geedi socodkiisa uu socday in hab ka baxsan sharciga iyo dastuurka iyo hanaankii dawladnimada lagu ansixiyo runtii wax aad iyo aad looga xumaado. dhaqankaana mid ku cusub ma aha laakiin maanta waxaan u dul istaagaynaa maanta waxa taagan wax la wada gar karo oo la wada arki karo. waxa laga hadlayo waa quorumka wax kale laga ma hadlayo dad aan joogin iyo quorum aan joogin in dastuur lagu ansixiyo oo sida la idin sheegay 3-2 inay joogto ay tahay runtii arrintaas nasiib darro aan aragnaa waana dhaawac loo geystay ummadda Soomaaliyeed dawladnimadeeda. laakiin waxaan hubaa ummadda Soomaaliyeed waa ka feejigan yihiin dadkii amaanada loo dhibay amaanada waa la kufeen. waxaan aad iyo aad uga xunnahay iyadoo bil Ramadaana in lagu mashquulsanaay waxyaabo diin ahaan aan banaanayn oo dawladnimo ahaan aan banaanayn in lagu mashquulsanaay dadkii abaaro u dhimanaya oo dhibaataysan in lagu mashquulsanaay aad iyo aad uga xunnahay. tirooyinka waa la idin sheegay sida ay kala yihiin kuma noqonayo. waxaan rabaa inaan dul istaago dhacdadii faasha xumeed ee halkan ka dhacday ku dhacday ninka mas'uulka ah hotelkiisa saqda dhexe loogu yimiday. runtii waa wax laftigeedu aan hore loo aqoonin oo aad iyo aad u xun wax laga naxa ah laga fajaca ah in booliskii Soomaaliyeed ee ahaay hay'ad garsoorka la shaqeysa ee cadaaladda inay xoojisa ay ahayd ay hotelka ugu soo dhacaan ay kala baxaan nin mas'uul ah oo la joogay xildhibaanadiisii oo loo ogolaa waay inay deegaanadooda ku laabtaan oo loo ogolaa waay inay tagaan baarlamaanka oo ay ka codayaan loo ogolaa waay inuu la joogo in dambi looga dhigo runtii aad aan uga xunna. marka waxaan ugu baaqaynaa booliska iyo dawladda xorriyadiisa si degdeg ah in loogu soo celiyo ayaan ugu baaqaynaa. waxaa khalad ahayd markii horeba in la soo celiyo oo laga soo celiyo deegaanadooda. waxaa khalad ahayd xalay in loogu dhaco. waxaa khalad ahayd xildhibaanadii hor istaagay in la dhibaateeyo. arrimahaasi waa arrimo dhaawacaya dawladnimada iyo geedi socodka nabadda ee Soomaaliya ay ku jirto. intaas markii aan ka soo gudbo sida hortayba la sheegay dastuurku waa heshiis bulsho oo u baahan dhamaanteen inaan difaacno. siyaasi kaliya ma leh waxa iska leh qof kasta oo Soomaaliya. marka aan wada istaagno dhamaanteen dastuurka inaan difaacno. dawladuna maanta waxay cadeysatay inaysan sharci aysan u tureynin midka ay hadda sameeyaan uma turi doonaan uma fuli doonaan maxaa yeelay sharciga uma socdaan. laakiin waxa xaqiiqo ah jabtar cusub in Soomaaliya uu ka bilaabo. dastuurkaas waxa loo bedelayo oo quorum la'aanta loo sameeynayo ujeedooyin siyaasi ayaa laga leeyahay. mar raba inaan sheego waa la arki doonaa laakiin ha loo diyaar garoobo sida la isaga difaaci lahay. aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.